wafdi ay hogaaminaysay marwada qaranka Soomaaliland ee weheliyaan wasiirada maaliyadda waxbarashada iyo warshadaha Soomaaliland xildhibaan Blacky afayeenka madaxtooyada iyo mas'uuliyiin kale ayaa maanta magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley ka qayb galay gabagabada kulan soconayay 3 cisho oo aqoonyahanka gobolka Gabiley ku naaqashay buugga horumarinta gobolka Gabiley iyo qaabka ugu wanaagsan ee loo horumarin karo adeegyada dhaqan-dhaqaale ee bulshada ku dhaqan gobolka Gabiley waxaana sidoo kale madasha fadhiyay maamulka gobolka iyo kan degmada Gabiley xildhibaano ka golaha deegaanka Gabiley iyo ururada haweenka salaadil cuqaal iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolka waxaan ugu horeyn faahfaahin ka bixiyay ujeedka shirka aqoonyahanka soo abaabulay kulanka isla keentay waxay ahayd guddiga qabanqaabadu waxay ku soo bilaabeen inay ka shaqeeyaan horumarka gobolka sidii looga wada shaqeyn lahaa inay ku baraarujino da'yarteen iyo dhalinyarada aqoonyahanka iyo sidii isugu xidhi lahayd dhammaan bulshada kala duwan ee gobolka iyo maamulka iyo golaha deegaanka sidii aan uga wada shaqeyn lahayn horumarka gobolka way salaam bacdi waxa weeyaan 3 cisho waxay noo socdaan tan ugu socday dana aqoonyahankii nahay shir dhalinyarada waan ku falqeyn baahiyaha gobolka kajira markaa waxaan ka soo saarnay anagoon weli soo wada saarin baahiyaha gobolka shantii qodob ee ugu muhiimsanaa ayaan soo qaadanay waxa weeyaan shanta mashruuc ugu muhiimsan oo ku jira qorshaha buugga horumarinta gobolka Gabiley markaa waxa weeye qorshaha koowaad aan soo qaadanay wuxuu yahay mashruuca dhamaystirka sharciyada gobolka Gabiley district profile يعني district profile waxa weeye hadda xaaladda ay ku sugan tahay magaalada oo waqtiga la sameeyay qorshaha horumarinta kasoo waxa kale oo ka koobnaan doona la tashiga bulshada la tashiga bulshaduna wuxuu sabab ku hayn doona priorities ama waxyaabaha dadku u arkayeen inay muhiim yihiin ayaa iyadoo qayb ka noqon doonta saddex sectoral line ministries isku duwayaasha heer gobol ee bixiya adeeg bixinta sida biyaha waxbarashada caafimaadka ayaa iyadoo qayb ka oo ka bilaabay magaalada Gabiley 27 ilaa 29 oo maanta galkii soo gudbiyay shirka oo lagu falqeynayay buugga qorshaha horumarinta gobolka Gabiley ee soo saartay wasaaradda waxbarashadu wasaaradda qorsheyntu in lagu sameeyo dib u eegis oo wixii qabsoomada laga saaro wixii kale baahiyaha sida kulmiyeysayna la sameeyo mashaariicda loo jeediyay Axmed waxay ahaayeen mashaariicda la doonayo in xukuumadda talada haysa ay fuliso noogu daran oo mashaariicda noogu daran aan ku codsanayno xukuumaddu inay yihiin baahiyihii dhabta ahaa ugu horeyn waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo wafdiga qiimaha leh ee nagala soo qayb galay madashan mar labaad waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo badha saabka gobolka oo fikradda iyo aragtida iyo soo jeedinta hawshan muhiimka ah lahaa mar saddexaad waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhalinyarta aqoonyahanka ee waqtigoodii u huray inay baahiyaha gobolka iyo gobolka Gabiley halku u socdo iyo halku joogo iyo wuxuu u baahan yahay inuu helo ka hawlgalay sidii ay heli lahaayeen runtii qorshahaasi qorshe aad iyo aad u muhiim ah dadkuna haddaanay garan halkay joogaan iyo halkay rabaan inay gaadhaan iyo waxay u baahan yihiin inay ku gaadhaan runtii waxay noqonayaan qof indhalo oo socda aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa laba qodob man ku soo koobi lahaa hadalkayga aad baan u soo dhaweynaa gol ahaan qodobada shirka ka soo baxay sidoo kale maamulka gobolka iyo kan degmada Gabiley ayaa iyana ku dheeraaday muhiimadda kulankani leeyahay aynu hordigno waxaan saddexdii maalmood iyo intaan qornaabo si ku jirnay intaba aan isku wacdinayn inay xukuumadda waxqabadka gaarigeenaas inaan ahayn markab Gabiley ka taado iyadoo waxaasoo dhan la qabtay haddana waa lagu tilmaa siyaasada bilan siyaasada caawa ee carabta bilaabay qofkii tilmaamaya ku kordhaa hawa u kordhee intii loo qabtay baahi kala caddayn qabtay baahidaan aynu weydiisanno oo hal wanaagsan oo dadnimo leh ku weydiisanno taana waxaan rajaynaynaa shanta qodob ee dhalinyaradu soo bandhigtay maaha wax qorqabada maaha wax lagu qasbay xukuumadda waa wax ka yimid xukuumadduna mar kasta ay diyaar u tahay inagoo intaasoo dhan
waxaan jecelahay anigoo hadalka soo koobaya anigoo jecel in hadalka soo ururiyo waxaan ballan qaadaynaa dhinacayaga annaga aqoonyahanku haddii uu hadalkii naga qaldamo soo bandhigistiisa inaanu ficilkiisu naga qaldamin wanaaggeena inaan ballan kuu taaganahay wasalaam lama soo koobi karayo maanta waxa gobolka Gabiley aan xukuumadda ka fulisay lama soo koobi karayo كلي بوكن قرشها شنطة سنة وزارة قرشين سيدو كل بلاد بلد كشيء وحاول كل بلاد ماي وزارة قرشين تقرأ مركب بوكن اللي ديارينه أيه واحد سميسي إن Gabiley لو ضرب هذه عايز كم من كلام خرج كلام سمين أيوه بوكن هرمانيتا يلو أي لقى عاوزي أما هو قيد الحادثة كقاضي وزير وزارة المالية عبد العزيز محمد سمالي يدور له حسن سلاح سرقة كان هو تقول سماي سماي أو باركتي كل سمالي لا لحد قبل هراء يجي له وكون قضي شرف هو بالنوت هاي أنت حكومة الدنيا جترو وحيابي لا قضي وحاولوا من سمر عليها وحيلون ما كانوا وجه على تجي دبعتني نجا يجتيد كاوج عليه هذا روح ده روح حيو باركتي هذا دبعتك اللي جترو سيجل ده كأجر نيسو ما أنت أنا الشنطة اللي واحد لو تجيو مدة صدق دقيقة بدو هذا هو شارك كسر قريسو sidoo kale wasiirada maaliyadda warshadaha iyo waxbarashada Somaliland ayaa khudbad durxula ka jeediyay madasha waxqabadka xukuumadda afartii sane hadda dhamaaday ka waramaystaan gobolkan ay waayeen ugu beeyay waana ana halka boqolaal wadoodan ku sidaayo haddaan ka waran isdaado ilaa cadad soo baxaysa dhammayn maayo waxa ka bilaabay masalan mushaharka shaqaalaha iyo ciidanka xukuumadii hore waxaan xilka la wareegay soo 5 bilood ay leeyihiin oo mushahar qaadan sidii xukuumadda uu Axmed hogaaminaya oo timid ee mudane Axmed Maxamed Sulaayo madaxweynaha ka yahay 9 bishii markay marayso ayaa mushahar u dhala qaata أنا حكي إن هذا المنطقة هذا البحرية شركة وجدت اسمها أما سميناركن أما ورشكن وهو معنيسو إن الجهاد المدير كليو أما الله تشلو وحنا وتقولها لونا تسو لونا شيرو الدولة هي ما كمان تعرفوا هذا هم ريال وأي شيء واحد يقول نقدان أما كذي كونان بينها بدل الشباب يا صور إنسان. والله ما تقوم بروحها إذا ما عرفتي دولة الدنيا إذا ترى كلنا بنسولي كنت بحثي عن المرة كاسفي عن وشكايو وماشي كذا الشاب وقولي أفرد معي لكن نسينا سألون يوم وحن على الحقوق بالإشعاع المهم وكان أستيقظ كل هذا وحلو سمينا الحقوق وحلو سمينا qualification وحلو سمينا authority كل شيء مثل أي وبعد يسوعنا ينسكسك أي فكرة ugu dambeyntii marwada qaranka Somaliland Marwo Aamine Maxamuud Jirde Aamine Waris oo kulanka ka hadashay ayaa tilmaantay inay muqaddis tahay ansixinta gobolka Gabiley iyadoo xustay in sharciyada gobolka la horgeyn doono baarlamaanka Somaliland salaanta kabari Gabiley iyo dawladda kulliyood la isku sheegnay waa laba isyaaqaan waa laba mid wada kala wuxuu gudo ka kala yaqaan Gabiley waa gobol inta ka bari mayso دولة وأحمد محمد محمود وضيقه الويلان بخير هنا حتى نحشوته كبير والله هذا يولد مس صرفت رأيتها وقبل تيشر عيادة عندما نبي وقتي نوشي طالما كيف فلنتك وحفظ ضيها حالك عاصمة المكوي مدعبه Gabiley gooni isu taagaysa Gabiley waynu filxayna inta shaqo muhiimada gobolkaynu wada dhaqmayna waanaynu la dhaqmaynay iskuwayaashiga wada jooga barasaankiga jooga waa gobol Gabiley waa Jacfar Awil Harari shabakada wararka ee Gabiley News Network magaalada Gabiley